imtixaanaadka shahaadiga ah ee daladaha waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka furmay guud ahaanba iskuulada ku yaala degmada Balcad ee gobolka Hir-shabelle dhexe iyadoona la filayo inay dhawaan gali doonaan ardayda imtixaanaadka dawladda maanta oo ay taariikhdu ku beegneed 6 bisha May sanada 2017 ayaa imtixaanaadkan waxa uu ka bilowday dhammaan iskuulada ku yaala degmada Balcad ee gobolka Hir-shabelle dhexe waxaana imtixaanaadkani si wada jir ah u daahfuray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Balcad ahna si hayaha xilka gudoomiyaha degmada Balcad mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan Tiitow iyo kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hir-shabelle kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hir-shabelle iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Balcad mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan Tiitow ayaa gaaray dhammaan iskuulada ku yaala degmada Balcad ee gobolka Hir-shabelle dhexe iyagoona u kurgalay inay daahfuraan imtixaanaadka shahaadiga ah ee daladaha waxbarashada Soomaaliya kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka Hir-shabelle oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaankan shahaadiga ah ee ka bilowday degmada Balcad isagoona ardayda u sheegay inay dhawaan gali doonaan imtixaanka dawladda intaasi kadib maamul ku-xigeenka koowaad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad Ustaad Mawlid Ali Islaaw ayaa u mahadceliyay daladaha waxbarashada Soomaaliya isagoona dhanka kale ardayda ka qalin jebinaysa dugsiga sare kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashadooda inay horey u sii wataan qabanqaabiyaha iyo isku dawaridka imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga Evergreen Balcad Ustaad Sunni ayaa isna dhankiisa faahfaahin ka bixiyay isagoona dhanka kale ardayda kula dardaarmay inay anshaxa dhowraan imtixaankoodana ay si wanaagsan uga soo baxaan maadaama imtixaankani uu ka duwan yahay imtixaanaadka kale ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Balcad ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Balcad mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan Tiitow ayaa u mahadceliyay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hir-shabelle oo ka soo qayb galay furitaanka imtixaanaadkan shahaadiga ah imtixaankan ayaa ah imtixaanka shahaadiga ah ee daladaha waxbarashada Soomaaliya waxaana dhawaan la filayaa inuu bilaaban doono imtixaanka dawladda Ahmed Maxamed Shukur Ahmed Socdaal Radio Balcad magaalada Balcad